isku soo noqdo waxaana qaartay meel walba joogtay oo mar kale muuqaal cusub ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta Real Madrid oo markii shanaad ku guuleysatay koobka kooxaha adduunka. Karim Benzema oo noqday ciyaaryahanka ugu koobabka badan Madrid kulamada caawil ciyaarayo horyaalka Ingiriiska. Manchester City oo markaan u xidxiidanaysa inay Arsenal ka daba tagaan oo pressure ay saaraan. United-ka oo booqan doonta garoonka Leeds United. Barca oo caawil ciyaaraysa xilli kulan adag ay la qaadanayaan Villarreal. haddii aad muuqaalka ka heshaan oo like garay kanaalka subscribe noo saar. haddii aynu ku bilowno kulamadii la ciyaaray xaleeto Real Madrid ayaa ciyaarta finalka koobka kooxaha adduunka ciyaar xiiso badan ee la qaateen kooxda kubadda cagta ee Al Ahly. Real Madrid nimankii Al Ahly hay intee qabteen ee xasuuqeen ee 5 gool ka kiciyeen. Real Madrid xalay waxaa bandhiga goolasha door muhiim ah ka qaatay Federico Valverde iyo Vinicius Junior oo min 2 jeer shabaqa gaaray xilli Karim Benzema uu dhaliyay goolka kaleeto. marka Valverde xil ciyaareedkan 12 gool ayuu sii mariyayo. ninkan hore waxaa sharad ku galay ninkii Ancelotti ayu yiri hadoo ninka 10 gool dhali waayo shaqadeyda of ayan ka hayo waan ka tagay oo iska casliya jawaab durba ninkii Valverde wuxuu sii mariyaa 12 gool. Real Madridna goolasha xal laga dhaliyay waxay ahaayeen qaladaad daaficiyada. Moussa Marega ayaana gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Madrid xilli ciyaarta ay ku soo gabagooday 5-3 nimankii Al Ahly ahay nimankii Al Hilal ahay 3 gool ayay keeneen oo marka kooxda kubadda cagta ee Madrid xalay way raaxaysteen koobkoodina farta ayaa laga saarayo nimanku way xaskuliyeen baga ayay ka garaaceen kooxda kubadda cagta ee Al Ahly. nimankii reer Sacuudi markoodii ugu horeysay ay ciyaarayeen finalka koobka kooxaha adduunka marka nimanku xalay waa la soo qatalayo wax ka weyn ayaa galay. Madrid ayay ku aadaan. Madrid haatan waa kooxda ugu fiican waana kooxda loo caleemo saaray inay noqoto kooxda ugu fiican dunidan haatan la joogo kubadda cagta. Real Madrid waa championska Europe haatan waa championska adduunka oo dhan. marka Madrid xalayto waxaa farta laga saaray koobkoodii shanaad ee Club World Cup-ka. marka kooxda kubadda cagta Madrid haatan tartama koobabka haysato dhan kuwa waaweyn Champions League horyaalka Super Cup-ka Europa League all of them isku soo dardar koobka kooxaha adduunka haatan 100 koob oo waaweyn ayay xireen. waa koobabka kaleeto kuma jiraan waa Europe laba tartan laga ciyaaro wala Super Cup-kooda koobka kooxaha adduunka raaci horyaalka ku dar Copa del Rey ku dar isku dardarso 100 ayay ka xireenoo 35 horyaalka ayay haystaan 19 Copa del Rey haystaan 14 Champions ka haystaan 5 koob kooxaha adduunka haystaan Super Cup-ka 4 ayay ka haystaan Europa League 2 ay ka haystaan isku dardar adiga Madrid markaan 100 koob oo waaweyn ayay xireen xalaytoole. marka kooxda kubadda cagta ee Madrid camaaliqadan waxba lagama qaban karo unbelievable way. marka Madrid haatan waa championska adduunka waa kooxda haysata koobka kooxaha adduunka. marka Karim Benzema wuxuu noqday ciyaaryahanka kaliya haatan ee Madrid ugu koobka badan maadaama Marcelo uu ka tagay 25 koob ayuu ku hakaday waayo Benzema uu sii joogaya sida darteed waa ciyaaryahanka koobaad ee koobka ugu badan haysta xil ciyaareedkan. koob inuu hola ayaa laga yaabaa ama Champions ama Real ama Copa del Rey tartamada oo ka qayb galiyo midkood inuu helo ayaa laga yaabaa. marka 25 koob ayuu leeyahay Marcelo 25 koob leeyahay Pablo Jonta 23 uu leeyahay Sergio Ramos iyo Nicky Najamil 22 koob ayay leeyihiin. marka Madrid ragaas ayaa ugu koobka badan. koobka kooxaha adduunkana 10 sano hadda waxaa iska haystay Europe 10 sano waxaa iska gumaysanaysa Europe xilli koox kale ee qaado koobkan waxa ugu dambeysay Cristiano 2012 markii Chelsea hal iyo ugu qaadayeen Dave Luiz markuu u ciyaaray Cristiano markaas ayaa ugu dambeysay koox aan Europe ahayn inay koob ka qaado. 13 Bayern qaaday Real Madrid 14 Barcelona 15 Real Madrid 16 Real Madrid 17 Real Madrid 18 Liverpool 19 qaadeen Bayern Munchen waa koox kale oo mar labaad soo noqotay marka Real Madrid laga soo tago waa kooxda 2 jeer iyadoo qaaday marka 10 sano la eego 2020 qaadeen Real Madrid 2022 kan qaadeen halka Chelsea 2020 ka qaaday. Real Madrid 10 sano 5 kamid ayaga ayaa haysta Bayern Munchen ayaa 2 marka kooxaha kale tan waa iska halhalo. marka koobkana Europe ayaa iska gumaysanayso muddo 10 sano 2013 ilaa hadda ayaga ku doodinaya. dhanka kale haddii ay kulamada caawa jira horyaalka Ingiriiska caawa Man City ayaa ciyaaraysa
Man City ayaa rabta inay Arsenal pressure ku saarto inay dhahaan hayey waa idinka daba imaanay. Arsenal way ku feen bareeja galeen marka Man City waxay garoonkeeda Etihad ku qaabilayaan nimankii Aston Villa ahay dab yar ma shidaan. Macalinka watana waa Unai Emery nin hore u soo maamulay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal waxay taageerasho Unai Emery war nimanka noo celi waxaa sameyn karta sameey nimanka celi nimankan jidkooyo u dhigo shaf luluf wax un noogu sameeyay taagiyiin marka nimankan kulankii ugu dambeeyay garoonkan ku ciyaareen waxaa lagu xasuustaa Ilkay Gundogan ciyaartii mucjisada ciyaartii comeback ee horyaalka ay ku guuleysteen nimanka Man City ee Champions ay ku noqdeen waa kulankii ugu dambeeyay garoonka Etihad ka dhaca marka Man City waxay rabaan caawa inay adkaadaan haddii adkaadaanna Arsenal 3 farood ayaa loo jirsan karaa hal kulan oo kaliya ayaa loo jirsanayaa kulankaasna waa isla iyaga labadooda isbuucaanba waxa Man City ay rabta in nimankan horiya hoggaanka ka qaadato isku dhibcay noqdaan marka farqiga goolasha ee ugu faanto marka kooxda kubadda cagta ee Man City hal saac bar ay la qaadan doonaan kulan adag kooxda kubadda cagta ee Aston Villa nimankii dariskooda ah nimanka aan ka faa'iideysan karin kulanka nimanka aan fursadaha iska lumiya nimanka ku barmarsiyoonaya ka sameeyana naga maqan anaga wax ma qabansan karno dhexdeena furmeysa nimankaas ayaa u safraya Leeds United waana Leeds dhumisay dhibcaha ka khasaarisay waa Old Trafford intay ugu imaadeen bareejaha ku celiyay ayay la ciyaarayaan kulan adag oo soo gali doona 12 saac galabta marka Manchester United waxa la xasuusto kulanka ugu dambeeyay bareejo lagu celiyay isla Leeds marka galabtana kulan adag ayay la qaadan doonaan kooxda kubadda cagta ee Leeds United-ka waxay daneynayaan inay adkaadaan haddii adkaadaan waxay tagayaan 46 dhibcood 46 ayay tagayaan hadda 43 ayay leeyihiin marka nimanku waxay rabaan inay Arsenal fursadaan marka Arsenal meeqay leedahay 52 nimankan way imaadeen 5 dhibcood marka Man United ma ciyaaraysaa Barcelona caawa horyaalka Spain 5 saac habeenimo ay ciyaarayaan oo nimanku Villarreal ay booqanayaan waxayna daneynayaan inay hoggaanka sii dheereystaan maadaama Madrid koobka waxa adduunka ciyaartay ciyaareysana kulankeeda Khamiista kale ciyaareyso marka waxay rabaan inay haatan 12 dhibcood hoggaanka ku sii qabtaan 8 ku hayaan 3 ku dar hadee badiyaan waa hadee badiyaan 12 ariyahay nimanka goormay 12 meelaha tageen war Barca iyo Xavi sanadkan Lewandowski way kacsayiin war nimanku caadi maahan hoggaanka mar ayaga laga hayo 3-4 dhibcood amal looga hayo inta ka daba yimaadeen ee haatan ay waxay daneynayaan in 12 dhibcood ayaga ku sii qabtaan war Barca caawa 5 saac ay ciyaaraysa nimankina bulinahay caawna way ciyaarayaan iyagana kooxda Cremonese ay la ciyaarayaan Juventus Fiorentina kul adag ay qaadanayaan war aqyaari hadii muuqaalka ka hesho noola gareey kana ka subscribe na sar goodbye